kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan meel walbo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada musalsalka kani waa jacaylkayga afartii xalqadood ee u dambeysay ayaa muuqaalkan ku falanqeynaynaa laga soo bilaabo 234 ilaa 237. Marka hore aan ku bilowna xalqada 234 oo ka bilaabanaysa doodii dhexmartay Baresha iyo Mahima. Markii Mahima ay kasoo noqotay misana ay iska dhaaftay dilka ninkii Gautam ahaa ee sirteedii hayay, Mahima way iska dhaaftay ninkaas inay disho. Kadib waxaa dhacayso inay doodaan Baresha iyo Mahima. Baresha waxay dhahaysaa Mahima, anaga waxaan kuu maleynay inaad geeriyootay, laakiin sama aadan geeriyoonin. Qof dhinta ayaad iska dhigtay adigoo ka cararaysid markaasi mas-uuliyadii saarasha. Markaana waxaad u jeysatay rag badan inaad lacag ka dhacdid, Arjun iyo Gautam ay ka mid yihiin. Haddaba Mahima waxay dhahaysaa wax walba oo sheegto waa runtaada, laakiinse waxaad iga qaadi kartid ma lahan. Adigoo la kulmay Arjun iyo Gautam haddana ma caddeyn kartid inaan aniga wax walba ka dambeeyay. Markaasi Baresha waxay dhahaysaa aniga waxa igu ballan ah sirtaada inaan banaanka keeno. Mahima waxay dhahaysaa aniga haddii aan xumahay adigana ma fiicnid i ogow, sababtoo adigaba waxaad qayaantay Rudrakash ood intaad guursatay haddana aad iska furtay lacagtiisiina qaadatay, haddana Yufraj ayaad guursatay. Markaasi Baresha waxay leedahay qof walba sidaad adiga u xun tahay miyaad u maleysaa? Haddaba Mahima waxay leedahay runta ii sheeg, Rudrakash iyo adiga miyaad isla jirtaan? Guurka Yufrajna ma been baa? Markaasay dhahaysaa aniga Yufraj waan qayaanay, waa run, laakiinse adiga oo kale ma ihi Mahima, midaas ogow. Mahima waxay dhahaysaa ilaa yaraantaada ayaan aniga kugu dul socday, wax walboon sameeyay adiga ayaa i difaaci jiray, mar walbo waan ku qayaani jiray, wax walbo adiga leedahay waan kaa qaadan jiray. Baresha waxaad tahay nacas doqon ah oo ilaa yaraanteena ayaan kugu dul socday, anigana waxaan ahay gabar caqli badan oo kartideeda wax walba ku qaadata. Waxaad ogaataa ragga aan soo dhacay waxaan ka daran Rudrakash midda aan ku dhigi doono. Ninkaada Rudrakash iyo wiilkaada Saransha waan kaa dhacay, inkastoo aniga Saransha dhalay adiga waad soo korisay. Waxaad ogaataa Rudrakash waan la seexanayaa, quruxdeedii caqligayga ayaan ku sirayaa, lacagtiisa intaan dhaco ayaan meel cidla kaga tegayaa, adigana wax aad tiri kartid ma lahan. Baresha intay is ilowdo ayay dharbaaxo ku dhufanaysaa Mahima. Mahimana inay ka arsatay isku dayaysaa oo dharbaaxadii mid lamida ay ku jawaabto, haddana gacanteedii ayay ku dhagaysaa. Mahima waxay dhahaysaa dharbaaxadad igu dhufatay waan kuu jawaabi karaa, laakiinse waxaan doonayaa xanuun midaas ka weyn inaan kugu dhigo. Baresha waxaad ogaataa maanta ka hor aniga weligii cadow kaama dhiganin, kaliya agteyda waxaad ka ahayd walaashay oo iga yar misana doqon iska ah, laakiin maanta waxay ka dambeeyo cadowgayga ayaad tahay, iska kay ilaali. Mahima way dhaqaaqaysaa iyadoo niyada ka leh Baresha ma ogo in Yufraj oo aniga ii shaqeeyo, laakiinse waxay isku maleysaa inay sirtaas aniga iga qarinayso, oo iyada iyo Rudrakash inay isla shaqeeyaan inaan aniga ogeyn bay u maleysaa. Mahima sidaasay dhahaysaa, laakiin Baresha waxay fahantay in Mahima ay fahantay in Baresha iyo Rudrakash ay isla shaqeeyaan, misana furinkii been ahay, guurka Yufrajna uu been abuur yahay. Mahima inay fahantay ayay Baresha fahmaysaa. Fag bay leedahay Rudrakash la kulmaysaa, way u sheegaysaa. Waxay leedahay Mahima wayna fahantay qorshaheeniina waa flop, maxaan sameynaa? Markaas ayuu Rudrakash dhahayaa aniga waan awooday qoyska intaan u tago Mahima sirteeda inaan u sheego, laakiinse waxaan ka baqayaa inay farsamo kale isticmaasho oo anaga inaga guuleysato. Marka wuxuu dhahayaa Rudrakash arrinkan booliskan ku wareejinaynaa, wax walba booliska ayaa dhammaynayaan, anaga ma faragashanayno. Markaas kadib waxay go'aansanayaan inay arrinkaasi qariyaan, Saransha dartiisana ay u qariyaan. Ugu dambeyn Rudrakash iyo Baresha way soo raacayaan, Gautam ay la kulmayaan. Gautam wuxuu leeyahay waan baxayaa, alaabtiisu xirxiranaya. Markaas wuxuu dhahay halkan ma joogay sababtoo ah Mahima dhowr jeer bay isku dayday inay idisho, marka inta ma joogi karo. Markaas wuxuu wacayaa qoladii managerkiisa uu wacanayaa
wuxuu leeyahay London baan u wareegaya, walaalkii ayaa magaalada London degan, halkaas ayaan anigana u wareegaya. Markaas flightkiisii duulimaadka waxaa la leeyahay dib buu u dhacay, beri baad duuleysaa, sidaas la soco. Markaasuu ku fikiraya intii beri laga gaaray intaan joogaya. Rutrakash ayaa dhahayo markaas aniga hotelku dejinayo meel aysan muhiima ka arki karin. Halkii ayaa la dejinaya, waxaana la leeyahay cuntada rabtid halkaas ka dalbo. Halkaasuu Gautam joogaya. Dhinaca kaleeto Bareesha iyo Rutrakash way soo raacayaan. Gurigii ayuu usoo dhaweynayaa. Xilli Bareesha markaasi ay xoogaa wareer dareemayso maadaama ilaa saaka subaxii aysan waxba cunin. Markii albaabku soo dhow yihiin ay dhulka ku dhici gaaray, isaga ayaa qabanaya, wuu soo qaadaya, guduhu soo gelinaya. Hooyadii Bareesha dhashay oo albaabka furaysa ayaa naxayso. Markaasuu Rutrakash iska dhigaya qof markaasi oo u canaysan Bareesha. Wuxuu leeyahay culeyska gabadhaada iga qaba, albaabkiiga fur aan gudaha geliyay. Gudaha markii la geliyay kadib wuxuu dhahayaa Bareesha ayaa markaasi warwareereysay, sidaasaan u qabto gudaha usoo geliyay mooyee aniga sida guud Bareesha waan necbahay, inaan taabtana ma jecli. Markaasay dhahaysaa adiga maxaad halkan ka qabanaysay? Isagoo ka jawaabin su-aashaas Rutrakash ayaa waxaa hadlayay oday GPS. Wuxuu dhahayaa aniga oo wacay Rutrakash. Haddaba waxay dhahaysaa duqdii fasoo ahayd ee Bareesha dhashay, maxaad uga wacday ii sheeg, sababtad uga wacday maxay tahay? Xalqadda 234 halkaasay ku dhammaanaysaa, waan soo koobnay. Waxaan gudagalaynaa marka falanqaynta xalqadda 235. Xalqadda 235 waxay ka bilaabanaysaa Bareesha iyo Rutrakash oo guriga imaadeen. Bareesha hooyadeedna ay leedahay Rutrakash maxaad halkan ka samaynaysaa? GPS-na uu dhahay aniga oo wacay. Markaasi meesha waxaa kasoo boodaysa Maama Sharda ayaaba meeshii joogtay oo Saaransha oo la socday. Waxaana leedahay Maama Sharda aniga oo wacay Rutrakash si uu halkan iiga kaxeeyo anigii iyo Saranshaba. Intaas kadib waxaa dhacayso Saransha ayaa markaasi hooyadiis iyo aabihiis ka dalbanayaan. Wuxuu ka dalbanayaa inay gudaha soo galaan. Rutrakash wuu isdiidsiinaya isagoo jaleyn been ah sameynaya, misna dhahayo Bareesha qol lama galayo, laakiin Saransha dartiis ayaan u yeelayaa iyo haddana dhahayaa. Halkaasay Bareesha Rutrakash iyo Saransha ku sheekaysanayaan. Saransha wuxuu dalbanayaa hooyadiis aabihiis inay hal guri ku wada noolaadaan, gurigan ay kusoo noqoto hooyadiis iyo Bareesha. Laakiin Bareesha waxay dhahaysaa waad ogtahay wiilkaygi oo ciyaarta wali ma dhammaanin, ciyaartii aan kuu sheegay ayaa wali socoto. Markaan ciyaarta ku guuleysano ayaan soo noqonayaa. Laakiin Saransha wuu diidayaa. Rutrakash iyo markaasi Bareesha waxay isku dayayaan Saransha inay dejiyaan ay isku dayayaan, balse Saransha wuu murugaysan yahay, wuuna qiiroonayaa. Bareesha waxay dareemaysaa Saransha inuu dhib haysto, way weydiinaysaa inuu u sheego isku dayayaa, laakiin si sawirkii muhiima ayuu arkayaa. Sawirkii muhiima markuu arko ayuu is celinayaa, sababtoo wuxuu soo xasuusanayaa cagajugleyntii ay muhiima u cagajugleysay wiilkani. Waxayna ku tiri haddii aad u sheegtid Bareesha inaan aniga ku garaacay, waxaad ogaataa waan dilayaa hooyada Bareesha iyo weliba Rutrakash. Marka sida awgeed qof aad u sheegi kartid ma lahan ayay tiri. Wiilkana wuu cabsaday, intuu istaagay ayuu banaanka u baxay. Bareesha waxay dhahaysaa Saransha waxbuu iga qarinayaa, muxuu beenta iigu sheegay? Hadalla noocaas ayay is weydiinaysaa. Dhinaca kaleeto ninkii Gautam ahay hotelkii ayuu joogaa. Albaabka loo soo garaacayaa, wuu furayaa, waxba ma joogo, qof meesha ma taagno. Albaabka wuu xirayaa, haddana mar labaad baa loo soo garaacayaa. Markan labaad markuu furo waa ninkii uu biisaha u dirsaday. Biisa ayaa loo keenay. Biisiisi isagoo iska cunayo ayuu qolkiisii ku dhex arkayaa muhiima. Markaasuu naxayaa, wuxuu dhahayaa maxaad halkan ka samaynaysaa? Muhiima waxay leedahay waan ka xumahay Gautamow, dhaqso biisahada iska cun. Markaad biisahada cuntid kadib ayaan ku dilayaa. Waxay wadataa biskoolad oo ay uga cagajugleynayso inay Gautam ku disho. Gautam wuu cabaadayaa, wuxuu leeyahay Bareesha muhiima iska kii dhaaf. Waa ballan Bareesha iyo Rutrakash ma caawinayo, garabna ma siinayo, waan ka fogaanayaa. Bareeshana waxba uma sheegayo, fadlan adiga hay dilin. Waxay leedahay waad ka soo daahday, sababtoo aniga cadowgayga ma cafiyo.
maalintii aad go-aansatay inaad bareesha caawisid, maalintaas ayuu markaasi malagaadii soo galay. Anigana hadeer waan ku dilayaa. Biskooladii ayay markaasi riishada riixaysaa, laakiin waa ibar, xabad kama dhacayso. Wuu naxayaa. Markaasay leedahay nasiib baa leedahay. Mar labaad ayaan haddana qasnada tijaabinayaa. Xabad kale haddana soo ridaysaa. Haddana xabadii maba laha, waa ibar. Mar saddexaad ayay haddana sida samaynaysaa ilaa markii afraad ay sida samayso. Afartii marba xabad kama dhacayso biskooladii. Waxaadna moodaa inay biskoolada ibar tahay. Markaasay waxay leedahay Muhiima, Gowtamo, nasiib ayaad leedahay. Biskoolada wax xabad ah kuma jirto. Orod hadeer iska noolow. Xor baad tahay. Waan ku cafiyey. Meeshaad doontid gal. Orod iska bax. Markaasuu dhahayaa, muruntaada ma bixi karaa. Inuu baxo iyo isku dayayaa, laakiinse wuxuu dareemayaa in uu xanuun gudaha ka hayo. Dhulkuu ku dhacayaa. Had sababtoo ah biisihii uu cunayay ayay sun ugu dartay. Muuqaal xusuus baana la tusayaa. Markii biisaha sunta ku daraysay, ninkii biisaha soo waday ayay jidka u gashay. Nin kaloo iyada u shaqaynayay oo burcad ah oo iyada la socday ayay ninkii amartay ay tiri ninkii ii qabo. Markuu u qabtayna biisihii bay ka qaaday. Kadibna biisihii ayay sun ku dartay. Sunta markii ku dartay kadib baa loo dhiibay Gowtam. Gowtam suntii biisaha ku jirta ayuu cunay. Sidaasuuna marka qof u dhintay oo kaleeta oo u muuqdaa. Sidaasuu dhulka ku dhacay. Haddaba markii muuqaalka xusuusta uu dhammaado, markaas ayay bareesha Muhiima waxay u wacanaysaa ninkii iyada u shaqaynayay oo banaanka joogay. Ninkii markuu qolka soo galo, waxay leedahay meydkan banaanka iga geey. Ninkii Gowtam ahaa oo meyd ah ayaa markaasi qolka laga bixinayaa. Muhiimana waxay dhahaysaa, mar kaleeta waxaan ka guulaystay bareesha. Haddaba bareesha iyo Rudraakash subaxii dambe way soo raacayaan. Halkii ay Gowtam ku ogaayeen ayay imaanayaan, laakiin Gowtam maba joogaba. Markii waayaan ayay walwalayaan, waxayna u malaynayaan inay falkani ka dambeyso gabadhii Muhiima ahayd. Markaasay gurigii toos u soo aadayeen. Muhiima waxay isku diyaarinaysaa feesto inay guriga ka dhigto. Feesto la horay la dhaho oo Hindooga caado ay u leeyihiin ayay qaabanaysaa. Xilli saarasha uu leeyahay. Feestadan maxay tahay? Maama Sharda ayaana u sharxaysa feestada waxay tahay. Si kasta haddaba bareesha markay guriga imaato, saarasha wuxuu leeyahay marba haddaad timid waa inaadan markaasi feestadan iyo xafladan nagala qayb gashaa. Bareeshana waxay leedahay waan ogolahay. Kadibna qolkii Muhiima ayay galaysaa, iyadoo isku dayayso inay Muhiima la kulanto misena wax weydiiso. Muhiima ayay leedahay bareesha ayaa Muhiima la hadlaysa. Waxay leedahay Gowtam waan la'nahay, bal ii sheeg Gowtam halkeed ku geysay. Laboorka meel walba waan ka waayay Gowtam, maxaad ku samaysay? Muhiima si dadban ayay bareesha ugu sheegaysaa inay Gowtam dishay. Marka hore waan dilay leedahay, laakiin haddana kaftan ayay ka dhigaysaa wixii oo dhan oo bareesha ayay haddana ka qarinaysaa. Adigu bareesha way fahantay in markaasi Gowtam uu ku jiro gacantii Muhiima, ama ha disho ama ha dhaaftay inuu aydad isaga uu u maqan yahay iyada darteeda. Xalqada waxay ku dhammaanaysaa bareesha iyo Muhiima oo sii doodayaan, ayagoo markaasi Gowtam iswareysanayaan. Xilli bareesha ay ka shakisan tahay in Muhiima ay dishay ninka Gowtam ah. In Gowtam la dilayna anagan waaba aragnay. Xalqada 235 halkaasay ku dhammaanaysaa. Waxaan gudagalaynaa marka xalqada 236. Xalqada 236 waxay ka bilaabanaysaa bareesha iyo Rudraakash oo ka wada tashanayaan qaabkii ay markaasi Muhiima sirteeda ku soo saari lahaayeen. Waxay leeyihiin Muhiima hal talaabo iyo anagoo dhanna dheer tahay. Mar walboon isku dayno inaan sirteeda soo saarno, markaasi qorshe cusub ayay samaysataa. Sida ugu dhaqsiyaha badan, maadaama uusan Gowtam halkan joogin, waa inaan waddo kala baadigoobnaa oo Muhiima aan sirteeda ku soo saari karno. Haddaba iyadoo sidii loo wada tashanayo, bareesha waxaa laga soo wacaya dhankii isbitaalka. Kalkaalisa ayaa soo wacayso. Waxay leedahay bareesha ayay la hadlaysaa. Waxay leedahay bukaankii aan haynay runta ayuu sheegay. Kadib markaan siinay kaniinigii runta sheegayay, sidoo kaleetana aan markaasi qolkii ku xariinay, runta ayuu sheegay sidaas la soco. Kadibna bareesha waxay leedahay bukaanka nasiina ayuu rabaa, maadaama uu haddii runta sheegay.
inta kaniiniga jirkiisa ka baxayo hala sii hayo. Kadib Bareesha ay fikrad cusub keenayso in kaniinigaasi ay muhiima siiso. Waxay u sheegaysaa arrinkaas oo dhan Rudrakash. Waxay leedahay inta xafladan feestada lagu guda jiro waynan muhiima kaniinigaas siinaa, macmacaankan ugu daraynaa, anigana uguma daraaye aabba GBS ayaa ugu daraayo. Qorshaas ay labadoodii ku tashanayaan sidii ayayna kusoo ambabaxayaan ayadoo Bareesha ay hoosta ka leedahay maadaama aan dhakhtarad ahay sharci ahaan ma banaana sidaan sameynayo, laakiinse qoyskayga si aan u badbaadiyo muhiima waynaan sidaas ku sameeyo oo kaniinigaas aan siiya. Haddaba xafladii ayaa lagu guda jiraa. Oday Balraj wuxuu leeyahay maanta waa feestada Lohri, dhammaantiin waan dabaaldegaynaa. Intaas kadib GBS ayaa soo wacayo gabadhiisii muhiima. Wuxuu leeyahay xafladda anagaba waan dhigana gurigeena ayay ka dhacaysaa, waynaad adiga iyo Rudrakash imaataan. Marka hore way diidaysaa muhiima, laakiinse markii dambe oday GBS maadaama uu ku qasbo way ogolaanaysaa. Rudrakash ayay u sheegaysaa. Rudrakash jileenkiisii ayuu bilaabayaa isagoo isdiidsiinayo, laakiin Saransha ku qasbay dadkii oo dhan waxay leeyihiin waa inaad raacdaa. Dhinaca kaleetana Mishka iyo waxay ku faraxsanayeen in xafladda maanta guriga ka dhacayso, Bareeshana ay aysan imaanaynin. Haddaba xafladii xagga la isugu wada tagayaa dhammaan dadkii oo dhan gurigii GBS, waxaana iskugu wada tagayaan Bareesha, GBS iyo waliba Bareesha hooyadii way joogeen. Waxaa kusoo biirayaan oo guriga imaanayaan muhiima, Rudrakash iyo waliba Saransha. Rudrakash jileenkiisii ayuu wadaa, muhiima iyo Bareeshana jileen ayay bilaabayaan. Jileenkaasoo ah Bareesha waxay leedahay garaale noqo golaashii muhiima, ani adiga khilaafkiina dhex maray maanta waan ka heshiinaynaa. Muhiima iyadana waxay leedahay waan ku cafiyey adigana igaraale noqo. Sidii ay labadoodii isku cafinayaan. Rudrakash ayaa dhinac ula baxayay gabadhii Bareesha ahayd. Wuxuu leeyahay qorshihii ma diyaarisay? Waxay dhahaysaa kaniiniga waa diyaar, hadeer ayaan macmacaanka ugu marinayaa oo macmacaanka ayaan ugu darayaa muhiima. Kushiinkay galaysaa, macmacaankii ayay kaniinigii ku daraysaa, waana macmacaankii ay ugu talagashay muhiima. Laakiin Yufraj ayaa soo galay isla macmacaankaas inuu qaato isku dayaya. Bareesha ayaa ka celinayso, mid kale ay siinaysaa. Bareesha macmacaankii ayay muhiima u keenaysaa, muhiima way diidaysaa, laakiin Bareesha ayaa ku qasbay soo siinaysa. Waxay leedahay weli ima cafinin miya? Muhiima waxay leedahay waan ku cafiyey, haddaba cun ayay leedahay macmacaankan. Macmacaankii ayay cunaysaa. Markay cunto ninkii Yufraj ahna meeshuu jooga isagoo leh Bareesha si macaan badan ayay macmacaankan u diyaarisay. Haddaba muhiima waxay dareemaysaa caafimaad daro. Markaas ayay Bareesha waxay leedahay muhiima xaaladeeda caafimaad ma sahlano, waynaan isbitaalka geynaa. Rudrakash isagana sidaas ku adkeysanaya. Wuxuu leeyahay aan isbitaalka u wadno, ilaan waxaa la rabaa qolkii in la geliyo, runtana ay sheegto muhiima, afkeeda wax walba ay ka qarato, kadibna muuqaal laga duubto. Saasaa la rabaa. Ninkii Yufraj ahay wuu shakinayaa. Muhiima qolkii ayaa la keenayaa, wax walba halkaasi ka qaranaysaa iyadoo markaasi aan is ogeyn. Kaniinigii ayaana saameynayo. Waxay afkeeda ka qaranaysaa inay rag badan soo dhacday, lacagna ka soo dhacday, sidoo kaleetana hadeer Gautam ay iyada gacanteeda ku dishay. Sababtii Gautam ku dishana ay tahay in jeebkiisa ay u gelisay aalada sheegay salka uu joogo, sidaasna ay ku ogaatay meesha uu joogo. Biisahana ay sun ugu dartay, sidaasna uu Gautam ku dhintay. Waxay kaloo sheegaysaa sababta ay Rudrakash noloshiisa usoo gashay inay tahay lacagtiisa inay doonayso bil walbana 50 lag ay Saransha dartiis ku qaadato. Haddaba muhiima wax walba ay afkeeda ka qaranaysaa. Muuqaalkana waxaa ka duubay ninkii Rudrakash ahay. Su'aalahana waxaa weydiinaysay Bareesha. Muhiimana caafimaad daray halkaas ku dareemaysaa. Xalqadda 236 halkaas ayay ku dhamaanaysaa daawadeyaasha qiimaha badan. Waxaan gudagalaynaa xalqadii maanta oo Arbaco ahayd, waana xalqadda 237 oo muuqaalka aan kusoo gabagabeynayno. Waan ka xunnahay daawadayaal, xalqadda maanta kama gaarno. Waan rabnay inaan ku darno, balse waqtigaa nagu dhamaaday. Sida awgeed xalqadda maanta iyo midda beriba, labadaas xalqadood beri ayaan isku soo daraynaa. Beri ayaad kaga boganaysaa. Haddii aan beri ka gaari weyno waxay u badan tahay berita inaan ariisa ku mashquulino, laakiinse beri waan ku dadaalaynaa inaan soo bandhigno musalsalka kani waa jacaylkayga. Maadaama hadda muuqaalkan maanta waxaan ku sharaxnay 3 xalqadood, waana 3dii maalmood u dambeysay. Xalqadda maanta iyo midda berina
beri ayaan isla wada keeninaa insha allah. Wabillahi towfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.